هاي أنا كم حد يسوي ويسي wiilkayga adiga hadii aan ku sugi lahaa aniga aabaha waxaan oo dhan uma sameyn lahayn aniga aabaha dartiis ayaa waxaan oo dhan u sameeyay waa ku baryaa wiilkayga iska kay cafi waxaase ku dhaceen hooyo macaan wiilkayga muddo ayaa ka soo wareegatay aabaha safar ayuu aaday qorshihiisa wuxuu ahaa qoraxda intayna dhicin dib inuu u soo laabto laakiin asagoo waddada maraaya ayuu wuxuu arkay fiilooyin dhulka ku soo dhacay wuxuuna rabay inuu dadka ka badbaadiyo fiilooyinkaasna waxay lahaayeen maarso asaga jidka ayuu ka qaaday laakiin korontadii ayaaba ku dhegtay wiilkayga sidaas ayuuna asaga ku geeriyooday aabaha maxaan sameeya aniga سمع كلام معك وين أو كبرياء وين هو يبدأ القلب إقرأ الخولال أنت هذا إيمان كور أيه الديري أيها فوقينينا واني بريايا أيها قالنا ما دام أديك أد مخنت واجبك أديك لقاك بانا أنيك أيه قلت سيد ردد أديك ودنك واك مخنت إقرأ الخولال واسك حالي جعلو إن كقدب لحظة ماشي كده على واحد إن ماشي لامي أيه ودي راما أيان الله halka ma xadii keentayna okaad wax walba dib ayaan kaaga sheegayaa maxaad raadinaysaa walaal jecelow oo bariya jaarsi sii bal aan wax walba kuu sheegaya سمعينيس أنا ماشي دي شكل وهالك الصومعة تولد أوران أبيها قمر كعب وبهاش أنا نقعبها سيجاك نوع عنو كرنا أبيه تولد أسيجا كعبه adiga waxay qortaa aabbe korontada ku dhigtay sabab aad u leeyahay korontada ka sii lagu dhajiyay aabbe qof ayaa si ku talgal u dilay taas aniga ma aaminsanay sabab waa min weysay sabab waa min waxay tahay aabbaha qof magac leh ayuu ahay tuuladan dadku joogo idilna way xishmeyn jireen sabab aad u leedahay marka run ahaantii aniga taas ma aaminsanay saacadan cadaniya saacadan aabbe London ayaan ugu soo dhiibay saacadan qofka wadniisa ayuu la shaqeynaysaa haddii wadan aabbe uu istaago ساعدنا مش خير اسمه استاجيسا وحال برتنا يا عدل لسانية إنه سنة أبيع هذا كل منين ريبوتكو حكوا قرن أفر ساعة بر إنه دنتي لكن تصوى بين أفر ساعة بر ما منين ساعد وحي استجتي سدح ساعة بر مركي إيه هاد أبين وقت قصير دنتي يجي واحد مركي سمينا الموجين ساعد وضعنا لا شقيسه سد رديده واسكتورا كده مركي فلك كيستين واسك بعين أنا قاعدين كرحت واقع يا صاحب عدت ولدان جوجت أوجد مجرت أبيه لبتيسة لح فراد إن أي كنت هلي قفك مركي أعرّ أمركي أصعد راد لك وأقرأ بصومهن أنا كان واحد عدين إياه هلك أبيه أكو استاجي ماشي صفي عنه فيري كرمت هذا مركي لوتك قابتي كذب أوروي إن أولوتك ربحه سكس عد أيا فرتي سلاح دولك الله قريحي قسم عنده واحد يا صاحب إن أي أنا قرأ دعيان قرشان جيران أما بين أي نص مليان عدست حتى تاني وانكوها يا وحا إعد
dilka halkan inuusan ka dhicin laakiin iyaga waxay ka dhigaan dilka halkan inuu ka dhacay waxa ii cad dilka meel kale inuu ka dhacay aniga waan soo caddaynayaa kama harayo ilaa aan runta ka soo ogaadana in aan arrintan ka istaaga lagama yaabo laakiin saaxiib qofkan waa adeerkayga yaraantiisa ilaa hadda adeerkayga MBA ayuu saaxiib la ahaa aabbahay qofkan waa ganeesh waana cadowga aabbahay وقسلام أدير وان كاقاضي سيتهينا وان كوفي عنا ويلكي ان RMB لقاريس ونورمال سماهن وبس كعادي هو حلال اسكو ادي انا هدي حلسكو ادي وياي موتدان قاريس سيدي لو ايبيينا انيغا موتدان ملي اي اديغا باها ايا هدي اي سي وانا غاي ابوقتها او هذا ما حد يوديسي انيغا واباهي وليس هديد ما سينن اديغان هديد ايو كسيي marka xiriirka labadeena ka dhaxay muxuu yahay aniga aabbaha muddo badan aysan naqaanin runtii dad saaxiibana waayn aniga maadaama dhakhtar aan ahay bukaanka markuu ii waco si fudud uu tagi waaye sidaas daraadeed ayuu aabbaha mutadan ii siiyay aniga jawaabaha si fiican u soo diyaarsatay macnaheega aabahayga intuusan dhiman ka hor 4 milyan ayuu kaanka ku shubay sababta ugu shubay maxay tahayna sababta wax kale maaha aniga gabariyada ayaa la rusay وواحد العجنة ما يصير أسجن دينهان أيو يسي متكتبنا أنا جوانو علي العكتيس أكون كيس أيان أوش فهذا ماركن ميانا ها إن هذا رجال النقوان أركي وان اسكيلو لكن اسمه ده رجال أكون كيس أيو كسر درايا سيا هتبو وان كده بي هذا نوصي بحياة إجرا النقيا باي واي ويلكي సటయరుగని అడుగు పయనం సెలవని అడగని మనసు మదనం రుజువును కప్పిన మాయ తెరలను నిలువున చీల్చగా వెలుగు సమరం ఆగని క్షణం ఆపదు ఎప్పుడు కమ్మని నిసిని దాగదే నిజం అలలా ఎగిసే సంకల్పానికి అలసట ఎరుగని అడుగు పయనం సెలవని
మనసు మదనం రుజువును కప్పిన మాయ తెరలను నిలువున చీల్చగా వెలుగు సమరం గతం మరో సాగరం నీ పదం కదా సాహసం రక్కసి కాటుకు రెప్పే కూలగా నిజమును వెతుకుతూ తిరిగే కన్నుగా శోధనే సదా నిమిషం మాపక చెరిపే క్రతువై రణం బదులే అడగగ వంచన తీరుకి అలసట ఎరుగని అడుగు పయనం సెలవని అడగని మనసు మదనం రుజువును కప్పిన మాయ తెరలను నిలువున చీల్చగా వెలుగు సమరం మారగా పదం ఆయుధం ఆగని విధై నీ స్వరం కర్కశము కలుపన్నిన వ్యూహము పిడికిలి దెబ్బకు కూల్చే సైన్యం నీవుగా పదా ఎవరేమన్నా ఖాతరు చేయక తేనని చెప్పగా fankeeshaas soo socdaan ummada qaabkii aabihiisaas u dhintay inaan u sheego fankeesh waxaana maxay u sameynayaan kaamirooyinka waxba lagama ogan karo voice recording waa inaan soo degsadaa
karaa dhimashada aabbaha baaritaankaad ku wadda waa inaad joojisaa haddii kale ogow caqabad weyn ayaad la kulmi doontaa ya baaritaanka inaan samaynayo cid og ma lahan marka laga reebo mani aniga waaba saaxiibkayge yaaba qof kaloo aniga aan garanayno indhaha igu haayo aan arki ilaa ay goorta adiga wax baari doontid hoobiinka qabso haddii qof oona arka ka waranayo waxbaana ka badan qofnana ma arkaayo midada kale maalmahan aad way cadubaysaa maxaa kuu dhacana jacayl maan ku galay ii sheeg saaxiib yaa waa igadana itikaatamaa wayno ayada miya laakiin si tuuladuna way ogtahay qoftaas inay idhis qabto yaa maxay dhahday idhisii qabtaa ay أخبار في حنا كويس صاحي مانتي محاوي أخبارته أما غفو شيء لكن مامي ما أنت ندور نصوح تدور بقرا أنا كبيعي كورنا ولا أوكي تاريخ أريد رجو هاي رنتي ما أنت هذيك واضح استماع أنا نقرش كلام كوها أنا وحاوينا وين نصوح هذي وحنا كبحش متقنا صدق بقرا أنا كبحشي بلا ترنتي أريد رجو هاي أريد وحاسك كسوع عسنو معي رفت أنا الدورة إيه سورادي كل هذا هذا مسورادي سنة إيش أقبل صاحبه هذا حتى حاسك كسوع عس الصوب وحنمر هنا وش يكون سورادي وش سلاير بعدي أنا صاحبه قفك وش إذا حدا هذا وميع أذيك أنا قفك الدورة إذا حدا وأذيك الصوم عنا نيو هذا عادي ما تستينا إلى سنة كده عانا كتا دورة دي هي مبلغ أذيك غلب والبعد ورجستو حدا دون تسوق هذا واحد هلي سافرته مجرته آبها كرنت أو كلية هي ورنتي أذيك نوع كورة المشان إن سكيت تكتيد أو إنجليزي كاجا أدو لفتيد ما حيل المشان واحد كلية سافرته مجرته ده كانوا من أدو عدي ساعة مشان أتكتكت أو واحد ويسي ما فهمتي كل مرة حتى واحد يجسدي أذيك واحد دينه بدلي سافرته مجرته حيث دلنا كلية المشان سكيت نقاجي هي يري يا تاينا ديجا استك أذيك فرد استك استك
يا تاي وريا صوت قربت إلى إيدي شبحتها هنا هي وريا أفكر هذا وريا filimkan بدنا waxaa lagu tarjumay astaan films haddii aan dabagal ku sameeyo waxaa laga yaabaa reerkiisa caddeen un inaan ka helo waan dareemayaa wax ayaa qaldan sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan qaldan waa inaan soo ogaadaa iyo meesha ay ka qaldan yihiin qofka waxaan ka dambeeyey lagama yaabo inaad aragto aniga ayaad midaas kaa ogolaanaynin jeceelow maxaa saa ugu soo dahdayna inaan magaalada u socso moogeen waxba ma ahan walaal dacwo ayaa la keen dacwadaasoo ah in gabar la kubsaday isaga markii aan weydiin waxa igu dhahay aniga ma kubsan sheekadan aniga waaba ku wareeray kadib adiga maxaa samaysay waxaan isku dayay kiiskan si fudud inaan ku xaliyo gabadha ayaan weydiiyey waxaan dhahay markii lagu kubsanay dhar noocee adiga aad wadatee aniga waxaan dhahay dharkan baaritaan ayaa la geenaa si micnaha dembiilaha gacantiisa farihiisa loogu helo kiiska markaan si fiican u baaray arrinta iska sii daba dheeratay isaga waa ii imaaday wuxuuna ku qasbanaaday aniga inuu ibaryo kadibna waan aqbal maxaan samaynahay nin ragoo ibaryaa miyaa may dhihi karaa ugu dambeyn aniga waa u naxariistay sheekadana booliiska ayaan farta ka saaray walaal soo wax fiican ma samayn hal daqiiqaygaade ha waa soo socdaa okay walaal booliiska ayaa soo wacay mootadana waatana adiga sii kaxiso waa soo laabanaya aniga halo hooy macaan wiilkayga aaba markii uu dhimanayay dharka uu watay guriga ma yaalaana wiilkayga dharkaas waan gubnay adiga maxaa ka rabtana may hooye si caadi waa iska kaa weydiinaya leh hay wiilkayga ciyuu gurigay ma wada waya hooya galuuskan shaatiga aabbaha ayuu ku dhignaa dadka oo dhanna waxa ay leeyihiin aabbaha koronto ayaa dishay laakiin aniga taa shaki ayaan ka qabaa baaritaan si hoose u socda ayaan rabaa in aan sameeyo wax yaroo caddayn ayaan soo helay galuuskan shaatiga aabbaha ku dhignaa dhiig ayuu leeyahay maadaama adiga baaritaanka dhankiisa aad ugu wanaagsan tahayna inaad ii baarta ayaan rabaa dhiigga ku yaal b positive haddii uu noqdo aabbaha ayay isleeyihiin laakiin haddii b positive uu noqon waayo in la dilo ayaa caddaanayso vignesh horta aniga aabbahaga saaxiib aad iskugu dheeraayeen mideeda kale kiiskan anigaa baaraayo war cadna waa kaaga keenaya marka igu sii daa ee ka welwallow okay waa mahadsan tahay okay waa isku raacnay socdal adeer macaan dhiiggan dhiigga aabbaha maa wiilkaygi waa dhiigga qofka la leeyahay dhiigga noocaan oo kalena 1 milyan oo dadaa laga helaa dhiigganna waxaa lagu magacaabaa r h dadkana waxay ugu magacdaraan dhiigga dahabiga mideeda kale dhiiggan waa dhiig dumara waxaana la yaabanaha galuuska aabbaha dhiiggan waxa u geeyey laakiin aniga waan soo baarayaa laakiin qofka waxaan ka dambeeyey anigaa soo ogaanaya igu sii daa tuuladiinana waxaa ku nool 1 milyan iyo ka badan dad ah laakiin hawshan anigaa qabanaya sida ugu dhaqsiyaa badan jawaabaan kusoo siinayaa iga warsug oo keliya wiilkaygii waxbaan ha ka walwalin anigaa qabanaya hawshan si walbay ahaato anigaa soo afjaraya waan kuu kalsoonahay okay adeer ogeysiis dowladda waxa ay ogeysiinaysaa tuuladani in ay cudurro badani ku soo faafeen cuduradani tuulada si looga hortago faafideeda waxaa la rabaa qof waliba tuulada ku sugan in dhiig laga qaado si loo xaqiijiyo qofka kaasi inuu cudur qabo iyo in kale ogeysiis wasaaradda caafimaadka waxay ku wargelinaysaa dhammaan dadweynaha tuuladani degan inay iska soo diiwaan geliyaan baaritaanka dhawaan la qaadayo
dhegayso anigoo dhakhtar weyna ayaa dhiigan gacanta kaa saaray dhibaato inaad ii soo jiido wiilkayga waa isku daynaya qabso idhageys doctore dowladda markii hore aabe ayaa madax u ahaa maadaama oo dhinta shaqadiisa aniga ayaa qabanayo waxaan ballan kaaga qaadayaa shaqadan aniga darteedaad u qabatay inaysan wax dhibaato ah adiga kaa soo gaari doonin waa ballan waa mahadsan tahay nasiib wacan all the best vignis soo hadal adeer dadka tuulada jooga dhan dhiigooda waan soo wada qaaday xageen kugu keenaa waa arrin fiican shaybaarka geey okay adeer xaggaan isku arkeenaa okay bye mac salaama haadeer wiilkayga way dhegayso arrin farxadlaan kuu hayaa maxay tahayna wiilkayga qofka dhiigga iskale aniga waan soo ogaaday yaa waaye gabar lagu magacaabo sujeeta ayaa dhiiggaas iskale wiilkayga waa mahadsanta adeer استاك هسوارن انا ما ابي محد كوكتهي هذل ناس كلها ورا هذل يا نا الى هذل انا قاعدين عديان كوغو هيستا المشهد ابي اديق ايا كدنبي صوتو غروسكيس ديغا ايا كو يال markii la dilay maxaa ku geey meeshii sheeg hadal waan ku sheegayaa in anigii aabaha wax xiriir naga dhaxeeya ma lahan maalintaas waxaa dhacday ninkaygu cabsanaya guriga imaaday asigoo qaylina ayuu guriga imaaday wuxuu idhaa shaqadan waa joojinaysaa gurigana waa ka baxee wuxuu idhaa haddaa ka bixi weyse aniga waan ku dilayaa makdibna madax ayuu iga dhaawacay kadibna aniga gurigaas waan ka soo baxay kadibna aniga waa soo baxay aabaha ayaan waddada ku arkay aabaha garabkiisa ayaan qabsada kadibna waxaan dhahay waan ku baryaa ay badbaadi kadibna dhiiggay gacanta ku yaalay shaatigiisa guluuska ayay igu halaabeen انت سو كلمه انت سو كلمه laakiin aabahaaga markuu aniga ninkayga uu garaacay aabaha dadka uu shaqeeya asiga wax walba ayuu u sheegay rabka asigana wuxuu isku dayay aabaha inuu tuulada ka buriyo asiga markuu maqlane isla markiiba meesha ayuu ka soo tagay intaasoo keliya waaye wax kale oo dhaca ma jirto ii aamin waan ku baryayaa ابي صوته وتشمعتها وراني ابا مدلين مو انت استي ابا ودلاني حتى درنتي شيغو سون كدلايا ابي العك 5 مليون سو كبا قادن اديغا ها وان كقاتي lacagtadii soo celiso kuma dhina saga wayda ii soo celi adigana soo iskuma day tuulada inaad ka baxsato war adiga mana socota aba hadda information qaldan soo siiyay waxaan u imaaday aniga inoo garaaco aniga sidee la garaacaya 5 milyan darteed miyaa la garaacaya ma waanta adiga waan baxsaday aniga sidaas darteed aan baxsaday صورن ما ابي العق inaad ka qaatay adiga soo ummadii lacagta duceyso kadibna soo kugu miina kula dagaal adiga maanta aabe ayaa dhintay adigana aabe ayaa dishay kugu aamin hadii sheeg igu filan aniga ma dilin aabahaaga runta inaad dishay ku wanaagsan hadii kana ku dilaya idil hada rabto laakiin runta waxay tahay aniga ma dilin aabahaaga labadii xagee isku dagaasheen shirkadda doorada saacday ahayd 3 saac markay ahayd meesha isku dagaasheen kamera ayaa ku xiran ilaa runtaan ka soo ogaadana talaabo magaalada kama gadin kartid intaasna aniga diilo joogaysaa soo soco isida adiga maxaa samaynaysaa
danish isaga wuxuu rabaa kaamirada shirkadda inuu baaro hadda idinka ayaa inii taalaa hawshan waa inaa xalisaan صوت عرفت بحياتها بلاي ولا قرت هي ما لو جوكس ده ما حاجه بتاعت سي سي كاميرا بحر ماشي انا يوم بحنا ماشي سي سي كاميرا بكو حيرنو اسكي دافو فوتو وريا aniga la saaxiib ayaan ahay sirtiina waan baaraya runta bigi sheegaysa ma saldhiga ayaan ku keenaya mudane hadal wariya waayahay aw si si kamri waxa ku xirnaa aw wala jibi wala tuure mudane gadaashaana lagu tuure haanta qashika maarti gadaasheed waa iga dhab mudane haanta qashika gadaasheeda lagu tuure waa iga dhab maxaan ku gadaashaana mudane jibtiga dhafo ku bariya gadaashaana lagu tuure meesha haanta qashinka gadaasheeda haddaan ka soo waay adigaan qashinka dhigaya may waa hele gadaal ka soo raade wale wiilkayga hooyo sidaan oo dhan maxaad ugu fikiraysaana hooyo waxa ma jiraan qolada aan la shaqeynaya waxay ii soo bandhigeen mashruucaas aan xoogaa ka fikirooyaa wiilkayga intaasoo keliya maa la fikiraysaa wixii kula gudboon samee adiga waayahadhe hooyo haddana maxaa dhacayna aniga iskoolkayga waxaan ku dhameeyey holy cross internet figney engineering CBI mass communication london ayaan ku soo bartay soo saas ma ahan haa wiilkayga laakiin maxaad iigu sheegaysaana waxaa laga yaabaa birito seminar inaan leeyahay xoogaa tijaabo ayaan kugu qaadanayay wiilkayga buuqa isku furin wax walba waad ku guulaysanaysaa baaritaanka inay iga joojiyaan waxay u sameeyeen fideogaasna wuxuu qiraya anigoo aabbahay dilaayo
sababta aniga teleefonkaygaan kor ugu hayo mataqaanaa مسد يا صدعي شرفي يا وي شرفي لمبر كان يا اسكله يا لمبر كان قفك اسكله دي انا اوغادو عدين قعنتا كسو دغايا شرفني لكن لمبر كاس ما كو خرق صوته تلفك وسف غرسنا محتاي جعلوا نوع وايا هلو جعلو ها صاحب أنا أصحابتي أنا مقع شافني الله ما قجرانا مايا لكن ما حد يودي سيشن أنا واحد بمية جيرنا مايا هذا اللي نكون ودي صاحب الله ما قجرانا أوكي الو نمبر كان قف شافني الله ما اسكله ورشافني waxa sheegos man qaan number kan baabajiya iskala mar daba naga soo wicin nabad geliniyo maxaa ka khaldan okay walaal igra naqa naga tag ma sanid waxaan dhahay maxayeen intana ka socdaan number shaafnي ay ku qoranta sawta telefoonka u safgaysay maxay tahayna ana shakadan waa fahmi mana aqaan qoftan saaxiibkayga jecel xataa ma yaqaano لكن لمبر كان إنا أنا حلو هلا مهم سيلا هذا حلو بايعي إنا قف عبنا دويديستو ها هالقفان هيا سوريا واي أسكان وعاه صاحب مدة الكتب على سواء لما فلان كان محيطين أنا مهم أنكو سوا صاحب إنا كوش جربا يقدر يجلسوا اوكي maxay tahay arinta muhiimka ah diga rabta balsooda wax weyn ma ahan gabar saafinayn lahayd telefonkayga lambarkeed ku safgaraysan oo ku soo diraya waxaan rabaa adigana baaritaan aad iigu samayso meesha ka imaaday waxay tahay okay waaya hadeer ayaan ku fiirinaa okay saaxiib waa masantahay fiir adreeskan ku soo diray okay yes هاي اسبوعا وكوي ما هو صاحبي يا قاي adigana waxba ka walwalin mashquul ayaan naqday dhibaato ma laakiin markastan ku imaanay dib ma lahan waa iska caadi goortaartu ay imaanaysaa waa maasanid fiir aniga qaraaba guriga ii joogtana waa sii baxaya waaya dib ma lahan waaya macantii bye hallo yaa waayne harish waaye adiga harish matid ee vignesh ayaa tahay عيل بدنا محاوي سيدان هلو شردي maxaa kugu dhacay aniga soo socda ayaa mootada iga halawday laakiin meesha ma aqaan maxaa sameeyaa dhib malahan locationka ayaan kuu soo dirayaa waaya aniga ku imaana waxba ka cabsan waayahay daqiiqadan kuugu imaanaya ku sugaya gabadhan intay ka baxdeen locationka ii soo dirtay meeshaan waaye
Gotmi. Gotmi. waynu ka xunnaa nambarkaad uu adigu u dansan yahay Sawo lambarkeedu dansan yahay haddana. sheekada kow ayaan kaaga soo bilaabayaa aniga waan rabay inaan wax ku weydiiyo laakiin waxaan ogahay madax adeegaaga inaan waxba iima sheegaysid sidaas daraaddeed waxaan ku khasbanahay adiga in aan ku ciqaabo cirbaddaa markii aan ku doro kadib adigaa runta ii sheegaya facebooka twitterka iyo meel walba adiga aad isticmaasho waxaan dhigayaa fideogaaga markaas kadib waxaa laga yaabaa hadalka runtiisa inaad aniga ii sheegto cirbaddaa mataqaanaa waxay ka samaysan tahay qofka markii la duro waxba kale ma ogaanaayo jirkiisa ayay ku saaqaysaa wixii doona ayaa laga samaysanayaa hadda adiga ayaan ku durayaa runtii ii sheeg haddii kale hadal sababtad baaritaan ku diidda maxay tahayna aabbahayna maxaad u dishay adiga arrimihiisana maxaad ka og tahay Aniga waxba ma ogi. Waxaan ogaa ma laha. waad og tahay Ma ogi ayaan ku dhahay waxba ma ogi ma aniga. sheegayso maahan hadda ayaan ku durayaa marka adigaa runta sheegaya Maya. Runta ayaan ku sheegaya. sababtad cadowga igu noqotay ma ii sheegi karta aniga maxaad cadowga igu noqotay Aniga cadowgaaga ma ihi. Jaceylkaaga ayaan ahay. Aniga sharaafaniyadaada ayaan ahay. Adiga dambi baara ayaa tahay anigana wararkaas ayaan soo gudbiyaa. Adiga jecel weyn ayaa naga dhexeeya ani adiga. dhalasho wacan macanay Waa mahadsan tahay. aad iyo aad u qurux Sidaan dhan ha ii fiirinin waa xishoonaya aniga. Waa baxayaaye. dhaqsada ma ku Si bixin kasta haddii aa ii fiiriso wejigayga kama dhargaysid. Habeen madoowa geedaha hoosooda in la istaaga ma fiicno. Sababtoo ah habeen madoogi geedaha way neefsadaan. Haddii anaga meeshaan sii taagnaana ma neefsan karaan marka neeftaa ku dhageysano. waxba ka walwalin adiga Sabab adiga cirka maa ka soo dhacday. maya aniga cirka ma soo dhicin laakiin inaad ka cabsa adiga geedaha maba loo baahno sababtoo anaga markaan jiifna habeenkeen oxygen ayaana siiya sidaas daraaddeed ayaan halkan kuu keenay Aniga waxay ila tahay wax inaad samey rabtid. waxaan u baahanaa wax inaan ku tuso inaan kuu soo dhawaado muhiim Waa ku baryaha ii soo dhawaan aniga. sabab Waa xishoonayaano. sidaas darteedaan u samaynayaa Adigoo og miyaa waxaa samaynaysaa. inaan wax ku tuso ayaan rabaa aad ayaad u qurux badan tahay qof laga fogaan karana ma tihid nafteedaa bay dhaha soo dhawow saasaan kugu soo dhawaanaya macaaney idhagayso Adigoo og waxba ma samey kartid waa kuu sheega baay. ukaadi filimka Maxaa rabtaa? waxay rabtaa wax kaaga muhiimka ah inaad ilmaamaysid anigana waxaan rabaa inaan ku siiyo Maxaa ii siinaya? inaan wax ku dareensiiya ayaan rabaa Laakiinse aniga noocaas miihi waa kuu sheegayaa. laakiin aniga saas ayaan ahaye Mar kale isku daya ku dhihi lahaa. ఏమి మాయా చేసావే ఏమి మాయా ఏదో మాయా చేసావో ఏదో మాయా నీ కళ్ళల్లో కన్నానే నా కలలు నీ ఊహల్లో ఊగలే రేపవలు నువ్వంటే పడి పడి చస్తున్నా నాకన్నా నిన్నే ప్రేమిస్తున్నా ఏమి మాయా చేసావే ఏమి మాయా ఏదో మాయా చేసావో ఏదో మాయా
ఎటు వెళుతున్నా అడుగడుగున నిన్ను కన్నా నా ఎదురుగా నువ్వు నిలుచున్నా నీ కుదురుగా లేకున్నా పద పద పదమని పరువం సరసర తరుముతూ ఉంటే నిమిషం ఆగక నేను నీ చెంతకు వస్తున్నా ఈ కొత్త పిచ్చి పేరే ప్రేమ బాగుంది చాలా సాగే లీలా ఏదో మాయా చేసావో ఓ నా ప్రియా ఏమి మాయా చేసావే ఏమి మాయా ఏదో మాయా చేసావో ఏదో మాయా ఆ, ఆ, aabbo aabbo arrintan aniga muhiima ii tahay igu ku barya iga ogolowno aabbo aabbo ku baryaano sabab aad u walwalaysaa howshaada wado aabbo waad iga farxisay isma dheheen sidan fudud ayuu ku ogolaanayaa adiga dartaa wax walba waan u samayn karaa wiilkayga hooyada oo kaliya weydii aniga mararaan aqbalay hoo kafeegaan cab beelo labadiina marar ayaa qorshe degtay soo saas maahan aabbo ogolaanshahaga ayaa muhiima ooyahay saas haddee tahay ciida meeshaan waa inaa keentaa macquul maan aaba macaan dhaqsi imaa waan dhahaybe xirigan xoriga banaanka tagan haa waa kaasa asaga aabe iyada waaba imaad gudaha soo gelaya soco adiga sugay soo dhawow eedo waan ku salaamay waan kaa qaada gabadheeda hooya shafani allah waa ducaysan tahay soo dhawow gabadheeda aad ayaad u qurux badan tahay adiga soo baxay soo fariiso may jecel wax walba aniga kusoo sheegaya adeer ii ducee oo ducaysan tahay gabadhayda iga raali noqo yaaqi hoo gabadheeda iyo cab may eedo mar kale ayaan imaanaya hadda uma baahni waa mahadsan tahay abo okay hay dhabi qaabkaas markuu ila dhaqmo kadib waxaan go'aansaday wuxuu yahay inaan soo ogaado kadib waxaan ogaaday runta waxay tahay asaga dumarka si anshaxumo ayuu la dhaqmi jiray qofkay doonta ha noqoto xitaa haddii ay tahay naag la qabo ay qurux badan tahay asaga wuu la kulmi jiray gabdhaha tuulada jooga quruxda badan lacag ayuu siin jiray markuu sii kadib uu rikaateen jiray haddii xitaa gabadha ay ka hor imaato ninkeeda ayuu ka dili jiray si uu cabsi geliyo sidaas ayuu ku shaqaysan jiray qofkii waddadiisa ka hor imaadana wuu iska leexin jiray waryaada u dhammaystira waxbarashada gabdhaha wuu ka bixin jiray markay diidaana asaga wuu rikaateen jiray aabbahaaga dabeecaddii sidaas ayay ahayd 15 Agosto maalin maalmaha ka mid ah asaga xaflad ayaa lagu martiqaaday iskuulka ka dhaceysay meeshaasna wuxuu ku arkay maclimadda maduumani waan ku salaamay
waan kaa qaaday fariiso aniga maduumani ayaa lay dhahaa waxaan ahay maclimad jaamacadeed waxaan rabaa xalfad ka dhacaysa jaamacadayna inaan kuuga casuumo adiga ma imaanaysaa waxaan rajaynayaa inaan kasoo qaybgeli doontid maxaan diidi karaa oo imaanayaa adiga kafee ma cabaysaa maya waa mahadsan tahay waan sii baxaya aniga hadda waan daahsanahay asaga wuxuu u maleynayaa inay fududahay isla markiiba wuxuu ku fikiray qaabku gacanta ugu dhigi lahaa maduumani sababta iskoolka ardaydu aadaan maxay tahayne abay fiirey saaxiib waxbadan si u kala kacsanta ayadoo da'dan ku jirta caadi ma ahan ku dheh maxaan waa soo celi bisaab ku soo celi diisyo ku soo celi ku soo celi arwa la jawaab dheh ku soo celi idee war istubida iska daa yaqe ninkeyga waa ku barya iska daa idee adi ninkeyga waa ku barya iska daa yaqe ninkeyga dhibaato ku jira ii badbaadi tartiib ijlis halkan ii fariiso marka maxaa jira ii sheeg dembiyo leeyahay malaan aniga ayay wax iga sheegeen markaas kadibna asiga wuu xanaaqay gacan ayuu u qaaday asigana wuu iska celiyay ninkeyga madax ayaa bir looga dhufta walwalka iska daadiga wax walba anigaa xalinayo saldhigga oo ku xiran yahay saldhigga magaalada ku yaalo dhib ma laha anigaa la hadlaya deertanii kaadi halo isbitooraha miyaana waxaa kula hadlaya madaxweynaha tuulada ninkaas waa nin walaalkayga oo kale ah wax dembi ayaa laga qorin hala iska soo deeyo dhibaato ma laha yaaqe anigaa ku xalinaya lacagtoo dhan anigaa ku keenaya ii soo daa oo keliya hay waan xariisa uma jeedid meeshaad igu sugaa walwalka iska daa qoraal yar le ii qoraysaa oo keliya aadaad mahadsantahay aad iyo aad maya waxaas naga daa aniga iyo adiga hal tuulo ayaan ka soo wada jeednaa maanta anigaa ku caabiyey beritoolana waxaa laga yaabaa adiga inaad i caawiso marka isdeji ayaan ku leeyahay wax naga halaabaya ma lahan marka isdeji le adiga mudane waa maasanta ugu dambeyn waxa waaye hasti dhibkiina waa iga xalisay maxaan kuu suubiyaa ii sheeg waxaan rabaa ma ii samaysaa wax walba waa kuu suubiyaa iga codso hal habeen xaaskaaga ma ii keeni kartaa mudane maxaa ku waramo haysaana adiga xitaa waa ogtahay hal habeen oo keliya ayaan rabaa alla ogaalka ku yaal waxaas wax lagu waramaya madaxaad iqlaf garkaaga ciro leh haddaad diidda aniga waan helayaa warkan amaan saqiir soo jaala nacalla haddii ku daayo nacalla igu taala aabbaha iyo qabaadka maxaan dhaha ninkeyga kac waa ku baryaa ninkeyga indhaha kala fur adiga xilligaan maxaa soo doontay xilligaan maa la imaadaa lacagteeda ayaa soo doontay deen ayaa iga soo qaadatay dib dambana kuma arkin marka lacagteeda u maade xilligaa soo doonata maa weysay saas haddii ay tahay lacagteeda markaa iga soo qaadanaysa wakhtigaa rabta ayaa ii timid soo maahan maya saas ma ahan aniga hadda dhibaato ayaan ku jiraa mar dhow ayaa ninkayga dhintay isla waqti xaadirkaana lacagtaada aniga kuma siin karo marka waa ku baryaa mar kale ayaan ku siinayaa dhibaatada iga daa waa caadi middaas lacagteeda haddii aad bixi karin
aniga waa inaad i qancisaa war iga foqaan ku dhahay nacas iyo xunka adigoo duqa magaalada ima sidaan u dhaqmaayo waxyaabaha saqajaanabada aniga igulama dhaqmi kartid aan ku dhahay gurigaygana iga baxso waryaa okay aniga waa iska baxayaa laakiin lacagta aan ku siiyey 5,000 ayay ahayd ma fahantaa hadeertaanna 6,000 ayay noqotay beritoole subaxdii haddii aad isii weyso haddii ku sii waaya hee dhib ma laha taas maxkamadda ayaan ka dacwoonayaa lacagteedana waa helayaa sida ugu dhaqsiyaha badan marka dantaada ku jirtay haddii kale waxaad ogaataa adiga xabsi ayaa gelaysaa nolol xunna waad ku noolaanaysaa aniga waxaan rabaa mataqaanaa waxaan u baahanahay inaad ii samayso haddii aad ii samey weysana waxaad ogaataa ciyaalkaaga waan dilayaa shadhuumo ka fikir marka arrintaa walaalo waa ku baryaa ilmahayga waxaa iga gaarsiinin waa kuu sameynaya sidaasi qaabdarada badan ayaa loola dhaqma masaakiinta asagana dantiisa markuu gaaray meesha wuu iskaga tagay ilmihii yaryaraane ayagoo bustooda hoostooda ku jira ayay wax walba maqleen wax ka daasoonaa ma laha markii dambe carruurta yaryaraa waxay go'aan ku gaareen in ay guddoomiyahooda warqad u qoraan kadib way soo baxeen meel luuqa ayay soo galeen waxay bilaabeen inay guddoomiyaha warqad u qoraan qofka kula hadlaya waa fishaal fasalka shanaad ayaa dhigtaa tuuladeena madaxweynaha dadka dhibaato badan ayuu u geysanayaa macluumadeennana dhibaato badan ayuu u geystay aniga aabahayga waa dhintay qofna caawinaya ma lahan waa ku baryaa fariinteeda haddii aragtid ii soo jawaab anaga caawinaad ayaan u baahannahay dhibaato fara badan ayaana haysato carruurtii warqadooda ayay soo qaateen waxay rabeen guddoomiyaha inay la kulmaan kadib waxaa la weydiiyey sababtay ugu baahan yihiin guddoomiyaha markaas kadib wax walba ay u sharxeen ninka meesha taagnaa laakiinse macalinkaas wuxuu la shaqayn jiray aabbahaaga ayuu wacay kadibna wax walba ayuu u sheegay halo ha soo hadal waryaamali maduu madari waxaan u baahanahay ilmaheeda inaad u dhammaystirto wax caddeynana ma doonayo waa inaad tirtaa dhaqso socrar walaal soo istaag ma fiicantahan adiga waxaan garaynaa soo kee ma tihid ha waa fiicnahay ya warqadeedii maxaa waxaan anaa iska leh maxay warqadaan warqadan aniga ayaa qoray guddoomiyaha ayaan u waday hooyade guddoomiyaha ayaa lacag ka deysatay guddoomiyahana lacagta oo ka rabaa lacagtan darteeda oo hooyade handadad badan uu geystay gawra xataa wuxuu dhahay idinku waa nii dilaa lacagta haddii nii sii waay anaga waxaa u baahanaa nafsadeena inaan badbaadsano aniga iyo walaalkeybu nafsadeena ayaan badbaadsanaynaa meel abnina aadna ayaan u baahannahay anigoo rabo wax walba bannaanka inaan keeno oo caddeyn raadiyo adigaaba wax walba indhahaaga ku arkay aabbahaaga wax walbuu sameeyey adiga ayaaba ogaaday markii dambo anigana meesha ayaanba oga haray aabbahaaga dhibaataduu geystay wax walbuu samaynaya markaad aragta kadib waxaad isku dayday inaad beddesho laakiin waa beddeli weyse gabar qaraabadiina ayaa guriga maalin maalmaha ka mida imaatay haye eedo muddo ayaan iskaga dambaysa soo maahan haye eedo adeer gabadhayda waan fiicanahay xaaladda ka waran sidaabaa taa isma bedelin ka waran ayada aad ayay u qurux badneed aabbahaagana wuxuu bilaabay indhaha inuu la raaco hooyada ayaa isku dayday inay fahanto wuxuu samaynayo indhaha ayay ku haysay
isbuucaas gudihiisa habeen ka mid ah aabbahaaga sujeetaa gurigeeda ayuu aaday hooyadaa way dareentay aabbaha inuu guriga gabadhaas aadaayo kadibna waxay isku dayday gabadhoo dhan tuulada inay ka musaafuriso waryaa mar kale meeshaan ha isku imaanin ayaan ku dhahay sabab maxaa yeele anigu waa ay khiyaantay khiyaano weyn ayaa ii geysatay wax walba ma ogaatan adiga waayahay lacagteeda oo kaliya ma isii kartaa lacagtaada waan ku siinayaa weliba isla hadda ayaan ku siinayaa laakiin waxaan rabaa aniga meeshaan inaad ka tagto ka tag ayaan ku dhahay war soco wejigayga ka dhaqaaq maxaana taagantaa meeshaan soco bax war soco iga tagaa ku dhahay adiga yaa awood ku sii aniga gacan inaa ii qaado gacan inaan kuu qaado iska day midkaagaan ka talaabsanaa ninkii dariskaaga ahay gabadha guriga ku joogta ayuu la baxsanayaa oo kuu soo laabanaya iga tagnaya nasawada idinkana aabbahaaga qaladaadkiisoo dhan aniga waan duubanaya hal xaba kama tegin kadibna meeshuu aaday ayaan u sii raacay waryada idinka halkaas waa inaad ka raadaysaan socda gacanta ku soo dhiga marxab anaa taliya jirta halo vignesh adiga intee joogtaane aabbahaaga iyo sidoo kale dadkii la socday ayaa iraadsanay aniga waa cabsanaya aniga yaqay meelaan jooga xitaa ma aqaano waxaa ila socda adeer asagaa kugu dhina la hadal halo vignesh adeer suntaagar wax kula hadlahay aabbahaaga wuxuu rabaa gabadhan inuu gacanta isaga ku dhigo anigana waxaan rabaa gabadhan inaad badbaadiso waya adeer hadda intee joogtaa shirkadda orada ayaan joogaa anaga waddada banjeed ayaan siduu naqsi abdaa shirkadda orada igu imaada waya vignesh ciil badnaa gabartaas ayaad iga qaraysay adigana waxaad doonaysaa halka inaad ka baxsato waxaa lagu tarjumay neefa neefa maya adiga caruur ayaa tahay hawshaana ma fahmi karto markaan baa kadib wax khaldayna samaysa u baahanta soomaan orya maxay dhahday orya wax qaldan miyay dhahday aniga miyaa samaynaya wax qaldan orya isha yaabo waa gabadhaadoo kaleete anagana marti ayay noo tahay gabadhaada adiga aad dhashoo kaleete orya aniga gabadheeda maahan qofka aan ka helana xaska ayaan ka dhuuqaya orya ma fahanti adigana igama hor istaagi kartid abo oryada ninkaad iga qabta dhaqsada abo garkayga jiribkaaga haysta ku barya ha samaynin abo waa ceeb anaga martiloota ha samaynin warna si daqayo naya kaalintay wardiisa wax walba ay ahaata aniga xashka waa idan ka dhuuqa kuma sii daynaya maanta waan ka helay aniga adiga maxaad iga rabtaa marka iyadoo kalibiya marka aabo
meeqa gabdhooda dhibaato u geysta mataqaanaa bal fiiri meeshan kulligooda halkan ayay cadeen ahaan ugu wada jiraan 10 jir ka soo bilow ilaa 50 jir mid ka mid ah dhaafta adiga ma jirto xataa macallimada adiga waad qasabtay waad xoogtay dhibaato u geysatay maxaa ku kalifay dadka masaakiinta dhibaatadaasna u geysato qof xun ayaa tahay aab adiga in lagu naxariisan ma istaayshid halo mani wadada banjaab sida dhaqsi badan iigu imo ayura waad iswaanaysa samaan hadda laakiin jabi macaanaa ku jirtaa samaan war aniga waxaan jeclaado cid iga hor istaagi kartaaba yaraatee ma jirto yaraanteeda ilaa hadda ayaan san ahaa adiga mar hore ayaan kuu dhammeyn lahaa laakiin aniga ku dhalno wax walba inaa ogaatay halkaan u timid samaan waad ogaatay samahanna hadeertan adiga waad dhimanaysaa wiilkayga waa xitaa kuu dhaafi maayo naagtan ka hela darteeda wax walba u samayn karaa waad dhimanaysaa maanta waad dhimanaysaa Abo. markaad ogaatay aabbaha adiga dartaa inuu dhintay meesha ayaad ku suuxday anagana waxaan kugu soo ogaanay locationkaaga ayaan soo dabracnay kadibna hosbitaalka ayaan ku keennay wiilkayga kacadiga wiilkayga digtore adiga waad iska dhaadhacsiin weysay aabbaha adiga dartaada inuu dhintay kadibna qaar ka mida waalid ayaad ka soo gudubtay alo jecelo hooyo ii ilaali adigan kugu halaynayaa adiga inaa isdisho ayaa ugu tala gashay adiga intaad isdilin ka hor anigay jeceelow ayaa waxaa soo ogaana locationkaaga sidaa darteed ayaan kuu badbaadinay vignesh ka kac waa ku baryaa vignesh maxaan sameynaa anaga vignesh isbitaalka ayaan geynanaa soo qaad wiilkayga kacadiga aniga hooyadaa waxaan u dulqaadan weyn dhibaatada adiga aad maraysid saas darteed dhakhtarka ayaan ku geynay tigtore wiilkayga xaaladiisa sidee wax looga bedeli karaa sidiisa hore sidoo ugu soo laaban karaa waxay rabta ha igu qaadata aniga waan bixinayaa qarashka wiilkayga oo kaliya ii badbaadi waa ku baryayaa waxaad ii sheegtaa sababta ninkan uu doonayo inuu isku dilo aniga waxaan rabaa wax walba inaan ogaado ee ii sheega waxbana ha iga qarinin wixii runtaa ii sheega tigtore waxa dhacay waxaa waaye asaga aabihiisa aad ayuu u jeclaa aadna wuu u ixtiraami jira aabihiisa wax walboo dhaca kama qarin jirine wuu u sheegi jira ilaa yaraantiisa sidaas ayuu ahaa aabihiis ayuu ka amar qaadan jira laakiin waxaa dhacay wuxuu rabaa aabbaha gabadhan dhibaatiin u geysto wiilkaaga aabiis
si wanaagsan ay u jeclaa runtii asaga markuu dilay aabiis asaga wuu shoogay mar walbana wuxuu isku dayaa asaga gacantiisa inuu isku dilo maxaa yeele dilkii aabiis uu geystay ayuu asaga lahadda ka xun yahay waddo kale oo hadda wiilkaaga u banaan ma jirto sidaasay taana waan ku dadaalaynaa oo waan daaweynayna maxaa yeele ninkan aabiis ayuu gacantiisa ku dilay si walbay ahaataba waxaan ku dadaalaynaa asaga inaan daaweyno oo maskaxdiisa aan dejino adiga niyadiina qaar u sheega waxbana ha ka baqinina adigoon qalad ii fahmaynin digtoore waxaan rabaa inaan ogaado qof dhan oo bini'aadana maskaxdiisa sidee wax xasuusaha ku jira loo tirtiri karaa aniga hadda ku tusaya sawirkan si fiican u fiiriya waa maskaxda bini'aadanka meeshan waxaa kaaga muuqdo 100 milyan oo xidid bini'aadanka intaas ayay leeyihiin runtii qaybta kaloo maskaxda waxaa la dhihi karaa neuron tissue qaybtana waxaa la yidhahdaa cerebral cortex center meeshan aad arkaysaan waa meesha maskaxda xasuusta oo dhan ay ku kaadiso mar walbo anagaan soo kacno maskaxdeena waxay wareegtaa 20 ilaa 23 fiid oo awood ah intaas ayay wareegtaa runtii marmarkii qaar maskaxda waxaa loo daraa oxygen markaasna ayada maskaxda way degaysaa runtii wax walbo stress keeni karana way isbedelayaan maskaxdana way degaysaa qaab dhaqameedka xataa way isbedelayaan runtii maskaxdiina iyo qaybta maskaxda xasuusta kaydayso mar walbo qofka qisa oo la kulma maskaxdiisa way kaydaysaa oo meel bay ku qorataa kadibna maskaxda waxay dhibtaa baaq badan sida haddaad arkaysaan bal fiiriya waa xididadan qaabkay u samaysan yihiin si fiican u fiiriya qaabkan u samaysan yihiin waxaa la yidhahdaa snap technician macnaha wax kale maaha waa qaabkan haddaad u jeedaan qaabkaana wax kale maaha waa xididadii maxaa xididadan waxay gudbiyaan xasuusta oo dhana xididadan ayaa kaadiyo kadibna ayaga ayaa gudbiyo maskaxda waxay gudbisaan yurogaasna yurob kale ayuu soo gudbiyaa kadibna maskaxda halkaas ayay xasuusta ku kaadinaysaa weliba meeshaan hadda adikaad arkaysaan halkan weeye meel kale maaha kadibna meeshaan ayay xasuusta si toosa u gelaysaa annaga haddaan isku dayno maskaxdiisa xasuusihii hore iyo qisooyinkiisa inaan ka tirno waxaad ogaatiin asagoo isbedelaya annaga waxaan samayn karnaa maskaxdiisa inaan ka saarno xusuusihii hore iyo wax walbaba maskaxdaas ay kaadisay asaga markaas ayuu helayaa hurdo iyo farxad noloshiisana way isbedelaysaa runtii annaga haddaan dadaalno waxaan samayn karnaa maskaxdiisa qaybta xididada ee kaadisa xasuusihii hore inaan ka saarno xasuusihii hore oo aan dhaqno maskaxdiisoo kale kadibna maskaxdiisa waxay noqonaysaa maskax nadiifa oo fireesha balse waxaa wax walba ka horeeyo wiilkiina inuu ogolaado asaga arrimahan maxaa yeelay asaga la'aantiis aniga waxaan qaban karnaa habeerata ma jirto go'aanka gacantiisa ayuu ku jiraa dhakhtar adiga aad ayaad u mahadsantahay raja ayaad isiisa aniga aan ku noolaado waan kuu mahad celinayaa run ahaantii mahadsanid mudane maya hooyo macaan maya aniga ma iloobi kara waxa aan sameeyey gacmahayga maya aabbihii dhal ayaan gacmahayga ku dilay hal mid ayaan ku iloobi karaa midaas maya wiilkayga waa inaan nafsada isdhaafiya maya aniga iloonaanayo hooyo okay wiilkayga iska dhima adiga iska dhima adiga laakiin inta aadan dhiman ka hor hal mid ii samee aniga ii dil kadib adiga iska dhimo aniga aabbahan waan waaye bal adiga haddaan ku waaye ka waran noloshan maxay ii taraysaana sidaas darteed ayaan ku dhahaya waayaha idil aniga idil dhaqsi idil yaa qawiilkeyga figneesh macaan waayahay sida jeceshaan kuu sameynaa fadhiiso digtore asaga wuu ogolaade waa arrin fiican runtii waa dadaashay adiga hadda wax walba anigaa dhammaynayo okay waayahay laakiinse hal mar i dhegeyso annaga wiilkaaga maskaxdiisa waan dhaqi karnaa waana daawi karnaa wax walba hore u geystana
maskaxdiisa waan ka tiri karnaa balse waxaad ogaataa gabadhan intay joogto arrintaasi suurtagal maaha kaba soo qaba aniga waa daaweyne maskaxdiisana waa dhaqnay wax walbana uu iloofay balse gabadhan markuu arko wuxuu soo xasuusanaya dilkii aabihiisa uu geystay taas la soc adiga annaga si walba maskaxdiisaan u dhaqna xataa waxaad ogaataa waxaa laga yaabaa gabadhan inay u sheegto arrimihii asaga uu geystay markaasna meeshii ayuu ka soo bilaabayaa maskaxdiisana runtii meeshii hore ayay ku laabanaysaa noloshiisana halis ayay gelaysaa marka waxay la wanaagsan arrintaa inaan ka fiirsanno doctor anaga muhiimadeena waxay tahay asaga bas inuu noo noolaado wax kale ma rabno waayahay hawsha aniga hadda bilaabaya adika waad bixi kartaan waayahay mudane soo bax hooyo waan kaasii tagnay doctor sidaas ayaa xusuusaha xunxun lagaaga baabiiyey daawooyinkana sidaas ayaa lagugu bilaabay markaas kadib qof aan aqoonin oo kale ayaan kugula kulmi jiray laakiin muddo ayaan technician aniga la sheekaysanaya laakiin haddii uu isaga safaniya la kulmo xaqiiqatan waxyaabihii hore isaga oo ilow ayuu soo xasuusanaya ninkaas isaga hadda aabiis ayuu dilay wixii mas-uuliyad ahayna dush ayuu iska saaray annaga hal midaan noo furan keliya waxaan dhihi karnaa aabbahaaga wuxuu ku dhintay koronto midaas ayaan ka dhaadhicinaynaa wax walbane sidaas ayaan ku xalinaynaa isagana markaas wuu badbaadaya waayahay daawooyinkiisa in lagu dadaalo waa qasab dhakhtarkan sidaas ayuu dhahay gabadhuu jecelyahay haddii uu la kulmo waxaa laga yaabaa xusuustiisoo dhan inay dib ugu soo laabato aabihiis inuu dilana asaga inuu xasuusto laakiin nafsadiisa dhibaato ayaa soo gaarayso anigana maraba wax dhibaato inay iga soo gaarto adiga waxaan kaa rabaa inaad iska ilowdo xiriirkiisoo dhan iska ilow waan ku baryayaa aqbal midaas wiilkayga nafsadiisana ii badbaadi si adiga laguu badbaadiyey darteeda ayaa meeshaas ooga soo tagay aniga waxaan rabay dilka aabbaha ilaa aad ka iloobaysa inaanan kulmin ani adiga annaga waxaan rabnay farxad inaad ku noolaato muhiimaddeena dhan intaas ayay ahayd dadka tuulada deganna waxay rabeen adiga inaad badbaaddo oo keliya adigana waxaa bilaawday inaad baaritaan samayso annagana waxaan ka soo horjeednay baaritaankaas aad samaynaysid laakiin waa inoo suurtageli weyse annaga waxaan isdhahayna baaritaankan wuu ku wareeraya kadibna wuu iska daynayaa shaqadan taas ayay ahayd laakiinse adiga hore ayaaba u sii wadatay waxaad noo malaynaysa log inaan ku leeyahay waxaasoo dhan waxaan u samaynaynay si aan adiga kuu badbaadino oo xusuusahaaga hore aan qalbigaaga uga nadiifino hore ayaa qalad u gashay oo aabbahaaga ayaa dishay aniga maridu markale inaad waxaad soo xasuusato ama qalad kale aa gasho oo qof kaleeta aad disho intaas ayaan ka soo horjeeday Vignesh. adan ma aniga raal noqo aniga darteeda dhibaato u martay adiga caadi waa midaas muhiimaddu waxay tahay wiilkayga wax walba inaad qirato adigana hadda dembigaaga waad qiratay waan ku sugaynaa noo soo laabo adaa umaasan tahay adeer waan sarki doonaa waayahay
عارفين كرتانا wiilkayga wiilkayga way iga wadeen wiilkayga figneesh